madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo tagay hotel Iswaa'il oo shalay lagu weeraray baabuur laga soo buuxiyay walxaa qarxa ayaa waxa uu sheegay in arintaas baaris lagu sameynayo loo xil saaray dad isugu jira Soomaaliya ajaanib kuwa oo keeni doona qaabka iyo sababta loo weeraray. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in shacabka Muqdisho aysan ku jahwareerin weerarada mararka qaar Muqdisho ay ka fuliyaan shabaab. طبعا خبراء Soomaaliyeed iyo kuwa maxaan ku raadayay saaxiibadan iyo walaaleen inta ayaa loo saaray in ay soo baaraan wixii dhacay sababtay u dhaceen oo halkan uga dhacday cidii mas'uuliyadda iska leeyahay mas'uuliyaddeeda inay qaadan doonto hadii la yiraahdo amniga waa la sii adkeynayaa waa la xoojinayaa inta booqashadaasi si guul ay ugu dhamaanayso ilaahay irinkiis waana ku dhamaanaysaa waxaa dadka Soomaaliyeed mar kale inaan ka codsado inay dul qaataan saacadaha hadii la yiraahdo sharqas ay noo joogto wada xiran iyo qof meel lagu celiyay iyo waxyaalo noocaas hadii yimaadaan iyo ciidanka amniga oo maxaan ku raadayay wax baarayaan wax ilaalinaya hadii yimaadaan waxaan codsanaynaa dadku inay dul qaataan si buuxdana loola shaqeeyo ciidamada amniga oo gacan la siiyo dhamaantood qofkii yiraahdaan inta ka joogna inuu u dhaga nuglaado oo ka joogo qofkii maxaan ku raadayay ay yiraahdaan muxuu ahay kaalmada noocan aan kaaga baahanahay inuu degdeg u siiyo oo lagu garab istaago muxuu ahay amniga. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale waxa uu ka hadlay dhibaatada dadka shacabka ay ku qabaan xirnaashaha qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho oo ciidamada saaka intii ay ka tageen dadkii rayidka xitaa mas'uuliyiinta dawladda qaarkood iyo ciidamadii hubaysnaa ay u diidayeen. wadooyin badan xirnaan doono dhaqdhaqaaqa meelo badan oo magaalada kamid ah uu yaraan doona ciidamo badan ayaa magaalada ku daadsanaa doona amniga sugayo waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka iyo gabdhaha iyo dhalinyarada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ciidamadaas amniga ka shaqeynaya in gacan la siiyo kooda xaafadda jooga in biyo la siiyo maxaan ku raadayay hadii wax la dareemo oo la dhibsado ama shaki ku jira la arko loo soo sheego. dadka lugeynaya xaafadaha qaar ee Muqdisho ayaa mararka qaar markii aad la sheekaysato waxa ay ku sheegayaan in xaaladdu ay ka bedelan tahay subaxyadii hore.